فرت دولة dhaqaalaha ugu badan ku bixiya horumarinta ciidamada sanada 2022 adduunyada maanta dawladda aan lahayn awood ciidan oo xooggan waxay khatar u jirtaa in dhulkeeda la boobo oo dawladaha ka talka roon ay xoog kula wareegaan meel fog ka doonayaan tusaale dawladda Russia 2014 ay Ukraine kala wareegtay jasiiradda Crimea 8 sano kadib horaantii sanada 2022 waxay weerar balaaran ku soo qaaday isla wadankan ay ku tilmaamtay inuu khatar ku yahay amniga iyo jiritaanka dawladda Ruushka muuqaalkan waxaan idinku soo gudbinaynaa dawladaha sanadka 2022 dhaqaalaha ugu badan ku bixiya arrimaha ciidanka dawladda koowaad America sanada 2022 adduun dhaqaale oo dhan 728 bilyan ayuu Mareykanku u qorsheeyay arrimaha ciidanka waana 3.7% wax soo saarka dalka waxaan tuu dhiganta 39% lacagta dawladaha adduunka oo dhan ay ku bixiyaan arrimaha ciidanka dawladda labaad China 1.45 trilyan oo ah lacagta yuan una dhiganta 230 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ayuu wadankan u qorsheeyay gaashaandhigga waxay 7% ka badan tahay dhaqaalaha ay sanadkii hore ku bixiyaan arrimaha ciidanka wadanka saddexaad India 72.9 bilyan oo kamid ah dakhliga wadanka ee sanadka 2022 ayuu qorsheeyay arrimaha difaaca waana hanti u dhiganta 3% dhaqaalaha maxalliga ee soo gala dalka wadanka afraad Russia 61.7 bilyan ayuu Ruushku ugu talagalay horumarinta arrimaha ciidanka waa adduun u dhigma 4.3% wax soo saarka dalka ee Ruushka marka la eego muranada xuduudaha ee sii xoogaysanaya meel walba iyo dagaalada sokeeye ee ka socda dawlado badan oo adduunka kamid ah laguna daro dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo sare u qaaday cabsida laga qabo in dagaalweynaha saddexaad uu adduunka ka qarxo waxay si weyn loo saadaalinayaa in miisaaniyadda difaaca ee dhammaan dawladaha adduunka ay sare u kacdo haddaba daawade kaalintii ayuu dalkeenu ka jiraa adduunyada hardamiisa mise difaacan karnaa ciidanna hooyo haddii la soo weeraro